abaalmarintan ayaa ah tii u horeysay oo la guddoonsiiyo qaar ka tirsan shakhsiyaadka wax u qabtay Soomaalida dalkan Canada gaar ahaan magaalada Toronto iyadoo lagu aqoonsanayo waxqabadkooda. barnaamijka waxaa soo qaban qaabiyay xarunta dhaqanka Soomaalida Alberta oo kaashanaya qaar ka tirsan waxgaradka Soomaalida Toronto kuwaas oo sheegay in tallaabadan ay tahay mid lagu dhiirigelinayo dadka u adeega bulshada. runtii waxaa nagu dhaliyay waa arrin ku salaysan horumarka bulshada inaan ku dhiirigelino qof kasta qowmiyadda Soomaaliyeed ee ku nool North America qaas ahaan Canada meesha uu kaga jiro inuu ku dhiiranaado tartan la dhaxdhigo bulshada haddii uu noqon lahaa ganacsade haddii uu noqon lahaa sports suugaan iyo community volunteer aqoonta inay ku tartamaan waa dhiirigelin aan runtii rabno isla markaasna aan ka soo minguurinay bulshada aan la noolnahay ee horumarka adduunka gaaray waxaan dareemayaa feelinka bulshada ku nool Toronto caawa inay ka duwan tahay midkii berito. dadka abaalmarinta la guddoonsiiyay ayaa wax ka qabtay arrimaha waxbarashada, caawinaadda dadka soo galootiga, ciyaaraha suugaanta iyo horumarinta bulshada. Caanood Saadiq Maxamed oo ka mid ahay dadkii la siiyay abaalmarinta ayaan weydiiyay waxa ay ku mutaysatay. runtii ma garanayo waxaan ku mutaystay laakiin waxaan u maleynayaa ilmaha Soomaalida ayaan wax baraa waxaan ka caawiyaa homeworkooda waxaan leenahay school subaxii grade 9 ilaa grade 12 ka wax ku bartaa sanadkii ilaa iyo 1000 arday meelahaas baan u dirnaa jaamacadaha runtii ilmaha agoonta ah waxba kama qaadno haddii xitaa ay qaangaaraan I think waxaan u maleynayaa taas inay sabab u tahay in mataqaanaa caawa awardskan aan halkan ku helo wiilasha walaalaheena oo igu marti qaaday oo awardska bixinaya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin shaqo fiican baa qabateen maasha Allah wax loo baahnaa waaye halkan waxaan joogaa more than 27 years ma arag wax shaqadan oo kale qabanaya oo awards bixinaya. Mahad Yusuf oo ka mid ah dadka 10 sano ka shaqeynaya arrimaha bulshada oo la siiyay abaalmarinta ayaa rumaysan in weli ay jiraan caqabado badan oo haysta Soomaalida una baahan in la iska kaashado. caqabadaha ugu weyn oo Soomaalida hortaagan maanta waxa weeyaan wada shaqeynta dhaxdeena midda ugu weyn u baahan in unity dadka la isu keeno waxa kale oo qamida kale waxa dhawaad la socotaan dhalinyarada wadankan inay ku dhiban yihiin waa la socotaa dadka waayeelka inay dhiban yihiin shaqo la'aanta way sii badatay aqoon darrada way sii badatay dadkii marka caqabado waxa weey hadii aqoonta dadka ay sii baaba'eyso waxa arrin aad iyo aad drop out ka iskuulka ciyaalka iskaga baxayaan oo dhalinyarada yar iskuulada iskaga tagay way badatay marka sidaas sida kaliya lagu xallin karo waxa waaye inaan isku tashano oo dadkeena Soomaaliyeed ay isku yimaadaan wax wada qabsadaan istaageeraan oo walaalo la noqdo marka oo mataqaanaa dhibaatooyinkii wixii dadka dhaxdooda soo marmarana laga gudbo. dadkii ka qayb galay xafladda abaalmarinta ayaa aad u ammaanay in wax weyn ay tahay in Soomaalidu ay iyaga dhexdooda aqoonsadaan koodii wax qabtay. saa u sheegtay dadkii meeshan ka soo qayb galay maanta ayaan ka mid ahaa caawa aad baan ugu faraxsanahay inaan arko dad Soomaali oo isku imaaday oo Canada degan Toronto degan oo isiinaya abaalmarin wixii wanaagsanay oo dadkooda iyo communitygooda ay u qabteen marka waa sanadkii ugu horeeyay oo ever la sameeyay waxaan oo kaleeto. Xuseen Nur Xaaji, Ubanaha VOA, Toronto.